Hormuud Cable TV وهيلك شعبك. سعيد سليمان ميري هانتي دوري هوري قرانكا Somaliland oo maanta warbaahinta la hadlayay ayaa cod dheer ku sheegay inaanay xukuumadii hore ka tagin wax dayna sidoo kalena waxa uu weerar baan ku qaaday xildhibaan Ibrahim Mahdi Buuba gudoomiyaha dabagalka hantida qaranka Somaliland isagoo ku sheegay inuu adeegsaday awood aanu lahayn waqtigii kala wareegga xil wareejinta labadii xukuumadood ee kala dambeeyay goobjoog baan ahaa xisaabiyaha guudna goobjoog buu ahaa haba yaraatee wax deyna oo dawladdu hore ka tagtay may jirin wasiirka horena uu ka cadeeyay madasha wasiirka cusubna uu kula wareegay annaguna intii aan xil wareejintu dhicin xisaabiyaha guud warqad qoraal aan u qoray wax deyno taagneen ay jirto dhowr kulamaanu yeelanay intaaba aanu eegaynay inay jiraan wax deyna oo ay xukuumaddan kaga tegayso xukuumadda cusub haba yaraatee wax deyna oo xukuumaddii hore ka tagtay ma jirto aan ahayn sarbalas ay ka tagtay taa waxa dheer madaxweynihii hore Axmed Maxamed Siilaanyo bishii shanaad wuxuu soo saaray bishii afraad wuxuu soo saaray wareegto uu ku joojinayo wax allaale wixii aan ranis koos ahayn inay ka baxdo qasnada dawladda sida shidaalka raashinka ciidamada satellite-ka waxyaabaha running cost-ka stationary-ga waxyaabaha hay'adaha qaranku ay ku shaqeeyaan waxaan ahayn oo la bixin karaa ma jiro isagoo uga gol lahaa in ay dawladda cusub u timaado kayd lacageed oo ay bilowga ku shaqeyso haba yaraatee wax deyno laga tegina ma jirto xildhibaanku waxaanu fahansanaynba title-ka uu sito iyo mas'uuliyaadka iyo waajibaadka uu qaranka u haya ee saaran kow waa xildhibaan title-kiisu waa wakiil wuxuu wakiil ka yahay shacabka Somaliland laba waxa uu ka mid ahaa guddida dabagalka hantida qaranka dhowr kulan yeelanay isaga laftiisu waxooga uu ka haystay ma jirin ama waxa ay ka haystay ma jirin kulamadan aan kulmaynin waxa kale uu huwan yahay title xisbi mucaarad oo waajibaadkiisu yahay inuu toosh ku ifiyo ama toosh ku qabto khaladaadka dawladda xukuumadda saddexda mas'uuliyadood ee uu huwan yahay saddexda midna ma fahansanayn waayo waxa la yaab lahayd waxaanu asturay maxaad asturtaa wixii lagu diray saad asturtaa waxaanu asturay xukuumaddii hore in aanay xilkiisuna ma hadeeno wax asturo xilkiisu waa inuu wax ka shafo waa inuu bulshada u soo bandhigo khaladaadka jira halka waxa kaga muuqatay inaanu fahansanayba horta title-ka uu sito iyo waajibaadka saaran haddii aad eegto oo media laftigiisu uu investigation sameeyo xarumaha wasaaradda qaranka ee magaalada Hargeysa xarun aan la dhisin ma jirto oo dhowr dabaq laga dhigay gobolada kala daaliga xarumaha ay ku shaqeynayaan oo dhan waa la dhis wadadii isku xidhisay bariga iyo galbeedka Somaliland Sanaag iyo Togdheer isku xidhisay iyadoo dhudhubu madaxweynaha cusub yahay marka Jamaal Xuseen ba title qoraal yar oo ku soo qoray bartiisa Facebook wuxuu ku qoray tuugadu laba qaybood mid waa mid qofku yimaado qaato midna waa la sii qorsheeyaa oo mid balan garaysa waxaan u malaynayaa oo waxa Jamaal ka hadlayo in 80 milyan oo deemka hordhiciisi aynu maqlayno laakiin 80 milyan oo dawladda ka tagtay ama deyn haba yaraatee ka tagtay dawladda hore ma jirto si kastaba ahaatee waxaa isa soo taraya warar isburinaya oo sheegaya in xukuumaddii hore ay ka tagtay 80 milyan iyo inaanay ka tagin waa Maxamed Andar Hormuud Cable TV magaalada Hargeysa.